kormeerkan ayuu duqa degmada Garowe ugu kurgalayay xaaladda dadka ku ganacsada suuqa lagu iibiyo hilibka iyo qudaarta ee ku yaala magaalada Garowe caasimadda Puntland. ganacsatada oo u badnaa haween ayaa sheegay inay dib ku qabaan suuqa maadaama uu aad u kulul yahay, isla markaana waxay ka codsadeen gudoomiyaha cusub ee degmada Garowe inuu soo galiyo marawaxda qaboojiya. waxay sheegeen inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay balse aan loo sameyn baahiyahooda. solar kuwaya kuleel kuwaya solar ka hadii laga saaro meesha muddo noqonaysa laakiin hal kala ay sameeyaan waxa ay raadinayna marawaxado oo cashuurta idinka afaysan way siyaawna haddii waa sheeganaysaa wax dhiyo kuma qabtaan. gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Siciid Geelle ayaa sheegay in wax ka qabanayo dhammaan waxa ay ka cabanayaan, isla markaana uu gudbin doono hay'adaha ku shaqada leh. ganacsatada suuqa ayuu ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda, isla markaana daboolaan hilibka si uu uga badbaado jeermiska. kormeerkan ayaa soo dhaweeyay dhammaan ganacsatada suuqa hilibka iyo qudaarta ee Garowe, iyagoona gudoomiyaha cusub ku tilmaamay in wax ka qaban doono dhammaan baahiyaha ay tabanayaan. Cabdirasaaq Maxamed Xayir, Kalsan TV, Garowe.